marka gobolka Banaadir maadaama mataladeeda ay la ansixiyay beesha saxawla karale maadaama ay ahayd beesha maaragtay gobolka Banaadir degan iyo guud ahaan gobolada Soomaaliya waxay maaragtay aad maaragtay u danaysaa xaqeeda inay ka hesho gobolka Banaadir iyo dawladda federaalkaba marka shirka muhiimadiisu waa intaas la soo dhawaado aad ay idinka mahad celinayaa baanti iyo bariba waxaanu taageeraynaa inaanu maqaamka magaalada Muqdisho aqalka sare 13 laga siiyay baan taageersanahay oo muddo badan ka maqnaa waxaan ku ayidayaa rabitaankooda hadaan garadkii aniga wixii ay rabaan oo xaq ah waan ku ayiday sababtoo gooshninka soo abaabushay anigana waa igu martiqaadeen oo waa ii wacdeen waa ka soo qayb galay sidaa darteed anigu ducaan u istaagay beelaha Soomaaliyeed dhamaantood Soomaaliya oo dhan dhamaantood waxaan u ducaynaynaa Ilaahay idinkiin nabad iyo barwaaqo waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliyeed kalama qaadqaaday inay xuquuqdeena nasiyaan wax oo baryayna ma aha waa waxaan xaq u leenahay wax badan ayaa naga maqan wax badan ayaa nala siin waa ka duwanahay qabiilada Muqdisho ku nool dad degananahay dad xaqooda sugto dad iibaan leh marka aniga aad u qiireysanahay waxaan marka aad u soo dhaweynayaa marka hore in xuquuqdii horta gobolka Banaadir matalaadii marka hore la helay kadib in dadkii xaq u lahaa sidii ay xaq u lahaayeen loogu qaybiyo oo bash saxawlo kalena xaqoodii ay lahaayeen ay helaan naada u soo dhaweynayaa warka idinku badin maayo iyo siyaasiyiinta beesha saxawlo kalena waxay soo dhaweynayaan matalaada gobolka Banaadir oo ay ansixiyeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya beeshu waxay kamid tahay beelaha degan dhammaan gobolka Banaadir in muddo xuquuqdeeda kama helin dawladda Soomaaliya federaalka saas darteed beeshu waxay codsanaysaa inay hesho xaq ay ku leedahay gobolka Banaadir iyo midka federaalkaba ugu dambeyn beesha waxay bogaadinaysaa hawlaha socda ee ku saabsan matalaada iyadoo rajo ka qabta inay noqoto beelaha ugu horeeya ee hela xaqooda matalaada gobolka Banaadir